guddigii madaxweyne ku-xigeenka magacaabay 25 bisha isla maalintaaba waa howlgaleen habeennimadii waxay jireen wafdi kasoo warbixiya meesha xaaladeeda oo uu hogaaminayay xildhibaan cabdullaahi yuusuf iyo samafale maxamed yuusuf tigey waxaa kaloo sii raacay isxilqaamayaal badan oo puntland caanka ah shalay kusoo noqdeen boosaaso waxaa kaloo dirnay isla 26 bisha injineeradii hay-adda wadooyinka puntland oo iyagana maanta garowe soo gelayo soo noqday oo soo qiimeynayay wixii qalab loo baahan yahay iyo shaqada laga qabanayo meesha noocay noqonayso warbixintiiba maanta ka sugeynaa tallaabada xigtana waxa weeye inaan dirno qalabkii meesha u dirno waayahay markaa guddigii aad halkaasi dirteen haddii ay meeshii tageen soo indhaindheeyeen warbixin kasoo gudbiyeen maxay halkaasi kusoo arkeen baahiyaha ugu weyn ee gobolka Gardafuul yaalana maxay yihiin baahida ugu weyn ee gobolka taalla waa in wadooyinka loo furo maanta waa go'doonsan yahay wadooyinka iyo dhanba ka xiran laba wada jirtay oo caan la mari jiray Lafagurayo iyo Dhabaaqo labadiba waa go'an yihiin badina waa kacsan tahay oo dabayla ayaa jiray wali xilligan marka tan ugu muhiimsan waa in si degdeg ah dadkii deegaanadii deganaa isku dibaridnay waxaan u sheegnay inay gacan ku sii shaqeeyaan qalabkana uu ku soo biiri doono wixii ay gacan ku sii qaban karaan wadadan weyn oo Lafagurayo buurta ah gacan bay awalba ku dhiseen oo qalab ma haysan safaad iyo sidac badan bay ka mareen muddo sanado ah bay wadeen marka baahida ugu daran oo maanta deegaan ku jirta tan koowaad waa in wadooyinka loo furo tan labaadna waxa weeyaan in wax uun gargaara dadkii lala gaaro maadaama inta ay godoonka ku jireen maciishadana ku qaaliyooday kayd badan oo haystaan uusan horey u jirin gobolka waxaa la ogyahay in 3 sano u dambeysay ay abaar ka jirtay oo roobkii hadda uun u daay wasiir waqti dheer ba kasoo wareegtay muddo todobaada intana go'doon baa jiray xaaladda nololeed ee gobolka marka hadda see weeye ma jirtaa wax caawimaha ama taaklo ah hordhaca oo halkaasi la gaarsiiyay taakuleedu laba qaybood weeye waagi hore hay-adaha laga sugi jiray laakiin maanta waxa weeye bulshada reer Puntland iyada istaageerta Soomaalina u gurmanaysay oo gurmadka beledweyne la arkayay oo xukuumad iyo shacabba maanta la fidinayay labadiba hadda way ku guda jirnaa hay-adina khamiista dhaweyd baan la wada shirnay in si degdeg ah la isniinta jawaab cad laga bixiyo laga jawaabo tii kalena maanta ay bilaabanaysaa oo wixii gargaar iyo kulli loo ururin lahaa xukuumadina iyada ka mas'uula oo dawlad ahaan qalabka diraysa dhaqaalihiina bixinaysa shaqada lagu qaban lahaa ma jira wax hordhac ah oo ilaahay hadda la gaarsiiyay oo taakula ah dadkaasi go'doonsan waa la wadaa waayahay marka meelaha ugu muhiimsan oo hadda go'doonka ku jira waa kuwee magaalooyinka ama gobolka kamid ah baadal ilaa calulada kala go'an tahay oo maanta gaadiid ma mari karo magaalooyinka Bareeda Tooxin Saanyar Seenweyn ilaa calula iyo magaalooyin yar yar oo kale aad u badan kulli wadada Lafagurayo loo mari jiray oo waa go'an yihiin dhinaca Murcangeeyo waa go'an yihiin oo Dhabaaqo ayaa u dhoweeyay xagga laga soo gali jiray wadooyinka marka si degdeg ah looga qabanayo insha Allah guddiga maanta iyo warbixintooda sugeynaa nooca qalabka loo baahan yahay nooca qalabkaas degdeg u diri doona insha Allah